Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa daaha ka rogay xogta askartii loo qaaday dalka Eritrea. Agaasimihii hore ee hay-adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo su'aalo laga weydiiyey ciidamadii Soomaalida ahaa ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ayaa sheegay in ciidamadaas ay sax yihiin oo ay ku maqan yihiin dalkaasi. Fahad oo diiday in tirada ciidamadaas uu sheego ayaa xusay in ciidamadaas ay dowladda Soomaaliya u dirtay inay tababar ku soo qaataan halkaas isla markaana dhowaan ay ku soo laaban doonaan dalkooda. Fahad ayaa waxaa wax laga weydiiyey sababta ay u doorteen in ciidamo loo qaado dalka Eritrea iyadoo la heli karo dowlado kale ayaa waxa uu yiri horta adiga markaad baahi qabtid cidda ku siinayso ayaa wax laga qaataa. Annaga baahida aan qabnay waxay ahayd in ciidamada loo tababaro marka dowladihii kale ee ciidamada noo tababarayay ma aqaan waxay Eritrea uga duwan tahay. Wuxuu hadalkiisa intaasi ku sii daray Eritrea waxay ka mid tahay dowladaha bixiya tababarada ugu wanaagsan, weliba ciidamada aan geenay waxay siisay tababarkii ugu wanaagsanaa. Mar wax laga weydiiyey waxyaabaha ciidamadan loo tababaray ayuu yiri waxaa loo tababaray qaybaha kala duwan ee ciidamada militariga, waxaa lagu tababaray hub kala duwan, waxaa loo tababaray jir ahaan, waxay noqon doonaan hanti ummadda Soomaaliyeed ay sanado badan u aayi doonaan. Fahad Yaasiin ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in ciidamadaas ay ka soo qayb qaateen dagaaladii ka dhacay gudaha dalka Itoobiya ee u dhexeeyay dowladda dhexe iyo Tigreega. Waxaan ka xumahay in wararkaas la dhaho. Waxaa arrintaas faafiyey waa Tigreega iyo kuwa u shaqeeya ee Soomaaliya jooga. Waxaa jira siyaasiyiin Soomaali ah oo taageera isla markaana Tigreega u shaqeeya. Ma ii sheegi kartaa waxa Itoobiya oo 100 milyan ah uga baahan tahay ciidamada Soomaaliya? Hal habeen ayay qorataa 100,000 kun oo askari ah. Waa wax caqliga ka hor imaanaya in la dhaho Itoobiya ayaa waxay u baahan tahay 2,000 oo ciidamo Soomaali ah oo tababar loo sameeyay. Wuxuu intaasi ku sii daray waxaan xaqiijinayaa ma jiro hal askari oo ciidamada dowladda oo tababar u jooga Eritrea oo ka qayb galay dagaalka Itoobiya. Xitaa ma jiro hal askari oo ka baxay xerada tababarka oo aaday magaalooyinka kale ee Eritrea. Ugu dambeyntii Fahad Yaasiin ayaa sheegay inay la fadhiisteen waalidiinta ilmaha loo qaaday Eritrea. Wuxuuna sheegay inay mar kasta la hadlaan ilmahooda. Laakiin taasi ayaa u muuqata inay been abuur tahay maadaama hooyooyin badan iyo aabbayaal badan ay ku barooranayaan wadooyinka Muqdisho iyo wadooyin kale oo waaweyn oo ku yaala gobollada dalka. Taasi oo la xiriirtay Farmaajo mar uu nala hadal oo ubadkeena meesha la geeyay noo sheeg xaaladoodan nooga warbixi. Fahadow mar uu nala hadal oo ubadkeena noo sheeg xaaladoodana naga warbixi. Laakiin taasi kuma uusan guuleysan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir in uu ka qanciyo hooyooyinkii iyo aabbayaashii Soomaaliyeed ee weli hurdada aan gam'in tan iyo markii carruurtooda la qaaday.